sidan horeba ula soconay ciidamada liyu booliska oo ka jawaabayay weeraradii ay al-shabaab ku soo qaadeen tuulooyinka Aato ee hoos yimaada degmada Beerey kana tirsan gobolka Afdheer ee Soomaalida Itoobiya ayaa wali sii waday toddobaadkanba howlgaladii ay kula jireen ururka al-shabaab waxayna kula wareegeen markii u dambeysay magaalada Garasweyne oo ay haatanba ku sugan yihiin ciidamada liyu boolisku meeshan horta aan ku suganahay waa Garasweyne waa tuulaha Garasweyne oo hadda ka hor ay deganayeen nimankii al-shabaab deganayeen budcadaha calanka hadda aad aragtana waa koodii anagoo markaa ka soo kaga nimid anagoo ah ciidanka dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa marka maanta waxaan ku suganahay Garasweyne oo kaga nimid dhankan waxa weeye xuduuda ayagoo hadda ka hor waxa weeye soo weeraray gudaha Itoobiya gobolka kamid ah Aata oo waxa weeye gudaha Itoobiya soo galay ayaa darbaha xun waxaan ka soo dhafanay Lehelow marka waxaan ka soo qabsanay Lehelow sariirad diugal shimbiraale la galay iyo rab dhuure maantana aan ku suganahay waxa weeye Garasweyne ayaa maanta hadda waxaan dejinaa calankoodii hadda waxaan dejinaa waa calankoodii annagoo haddana saarina calankii dawladda Soomaaliya ciidamada liyu booliska oo sheegay in ay ku wareejinayaan maamulka gobolka Bakool iyo sidoo kale la taliyaha ra'iisul wasaaraha mudane Maxamed Sheekh Maxamed Laxos howlgaladan ayaa waxay ciidamada liyu boolisku kaga dileen al-shabaab 12 ajnabi ah haddaba guud ahaanba guulahan laxaad kale ay soo hooyeen ciidamada liyu boolisku ayaa waxay sidoo kalena kaga qabsadeen 7 xero saldhig iyo 10 magaalo oo ay al-shabaab ka talinaysay دقنك الميجا درر وعن السداسي الشباب تومريا درر وعن السداسي الشباب تومريا نوغها قرجوف كاري سيلكا سنتاي مريان تادا نامالي إيساها كدادعي سيدي دروا دور قاضي الكاها قدادي سيدي دروا دور قاضي الكاها قدادي الشباب تهود كي هداتا هاي مسكح موري مريم بانكو ماريا مريا مريم بانكو ماريا مريم بانكو ماريا مريم بانكو ماريا الشباب انكو تايه الشباب مدى شومك هذا عطا الشباب مدى شومك هذا عطا الشباب مدى شومك هذا عطا الشباب مدى شومك هذا